السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام استقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وداووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. qofka hadlaya ha aamuso, qofka sare taagana ha fadhiisto, qofka soo socdana fadhiisiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la doonayaa ardaydii shamsul culum dhiganaysay fasalka lixaad sanadkan dhameeyay iyo qolada toddobaadka dhamaysay iyo qolada sideedaadka khuruujka baxsan saddexdaas fasalba xagga mixraabka ha yimaadaan. hadda wixii ka jooga hadda mixraabka ha yimaadaan insha Allah. mixraabka banaankiisa ha yimaadaan qoladii lixaadka dhamaysay qolada toddobaadka dhamaysay iyo qolada sideedaadka oo hadda afarta bilood baxsan wixii ka joogo mixraabka banaankiisa kor ha yimaadaan insha Allah. dadka hadlaya ha aamusaan, dadka taagana ha fadhiistaan. hadday iyaku fadhiisanayna ininku fadhiisiya, nin walba ninka ku dul jooga fadhiisa dheh. qofka soo socdana yar fadhiisiya. masaajidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam mar walba waxaa ka socon jirtay xalaqaad, diintaa lagu baran jiray, qur-aankaa lagu dhex akhrisan jiray. nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo masaajidkiisii xalaqad ku haya ayaa 3 nin baa soo agmartay. midi majliskii buu meel bannaan ka helay, meeshii bannaanayd buu buuxiyo u fadhiistay. midna majliskii buu
cidhiidhigii hantaaqdii buu kala xishooday dhinacii danbuu ka fadhiistay midna majliskii buu sidaa u eegay waa iskaga jeesto uu iskaga tegey rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam markii dambe saddexdii nin buu nebigu macneeyey markaa buu yidhi kii meesha furjadda helay ee soo dhowaaday ilaahay naxariistiisii buu u soo dhowaado ilaahay raxmaddiisii buu u dhoweeyey buu rasuulku yidhi ma maqlaysaan bal ninkii dhegaysanaya maqlib gacanta taag maasha allah si fiican baad u dhegaysanaysaan fadhiista weli dad baa soo socday inta dadkaa soo socdaan inaan fadhiisanaa fiican dadka halkaa sare jooga halkaa dhinacaas masaajidka xaggana iska bannaanee soo socda xaggaa u socda xagga dambe waa iska bannaan midi majliskii buu meel bannaan ka helay meeshii bannaanayd buu fadhiistay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay naxariistiisii buu u soo dhowaaday ilaahayna raxmaddiisii buu u dhoweeyey buu yidhi midna majmacii buu hantaaqdii cidhiidhigii buu kala xishooday isagana ilaahay waa ka xishooday buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam midna majliskii naxariista iyo barakaadka iyo raxmaddu ku soo degaysay buu ka jeestay isagana ilaahay baa raxmaddiisii kala jeestay buu rasuulku yidhi mambarka isagoo taagan ayuu nebigu saxaabadiisa ku yidhi ijlisuu fadhiista deedna cabdillaahi bnu rawaaxa saxaabiga la odhan jiray ee reer madiine ahaa ayaa masaajidka bannaankiisa isagoo maraya ayuu maqlay nebiga oo la fadhiista deedna halkii bannaankii cadceeddii buu iska dhex fadhiistay markaabaa nebiga sal allau alay wasalam uu arkayo ugu yeedhay cabdillaahiyow maxaa bannaanka ku fadhiisiyey buu ihi bal ii sheeg wuxuu yidhi adigoo le ayaan maqlay fadhiiste dee ma amarkaagaan diidaa un caasiyaa buu yidhi markaa buu nebigu yihi zaadaka allahu xirsan calaa tawaaciyati allahi wa tawaaciyati rasuulihi sida aad mar walba ugu dadaalaysa ilaahay inaad adeecdo oo rasuulkiisana aada u adeecdo aada ugu dadaalaysid allaha kuu ziyaadiye buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam walaal diinteenna macaan waxayna amraysaa inaan ismaqallo oo aan is adeecno oo aan is ixtiraamno oo aan isku naxariisanno oo aan kala dambayno khudbad salaaddii fajar markuu nebigeenu ka baxay buu nebigu mambarka fuulay siduu u hadlaayey ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii duhur baa gaadhay uu ka daadego salaaddii duhur buu saxaabada tujiyey haddana mar danbuu ku noqday mambarkii siduu u hadlaayey baa nebiga lagu yidhi casarkii baa gaadhay haddana casarkii buu usoo daadego waa tujiyey haddana uu ku noqdo nebigu haddana wacdigii buu sii bilaabay siduu u hadlaayey baa nebiga cadaadu u dhacday baa layidhi bayaanka nebigu uu bilaabay bacda salaati alfajar goor buu ka daadegay salaat almaqrib buu ka daadegay nebigu sal alla alay wasalam saxaabiga xadiiskaa warinayay wuxuu yidhi ninkii noogu walayn badnaa ee noogu xifdiga fiicnaa baa maalinta noogu oqoon batay waxaa dhacaya buu nebigu ka warramay wixii dhacay ee adduunka hortood ka dhacay buu ka warramay waxa dhici doonee soo socdo nebigu maalinta khudbaddiisuu kaga warramay waa maalin dhan ninna ma kicin ninna ma hadlin ninna ma daalin xataa nebiga indhaha kuma taagi karayn baa la yidhi laba nin unbaa nebiga eegi jirtay oo daymoon karaysay abibakar iyo cumar labadaa nin unbaa nebiga eegi jirtay oo indhaha ka buuxsan jirtay oo nebiguna iyaka uu eegi jiray baa la yidhi amaa saxaabada inta kale oo dhan xishood iyo haybad iyo ixtiraam iyo qadarin ay nebigeenna u qabaan calayhi salaatu wasalaam indhahuba kumay eegi kareen oo dhulkay eegi jireen baa la yidhi markuu nebigu la hadlaayo u xadiisayana hal go' haddii la saaro ragga meesha fadhiya go-aasi waa ku fillaan jire siday u dhegaysanayaan ee nebiga qowlkiisa u qadarinayaan marka innagana ilaahay baa inaga soo qaybgeliya kulankan diineed ijtimaaca maanta inoo bilaabmay waa raxmad weyn ijtimaacan waa naxariis waa baraarujin waa layna baraarujinayaa diinteenna islaamkeen ku dhalannay ee jacayladeedii hadda inaga muuqato kulligaan waxaan isku celcelinayna waa jacaylo weeyaan jacaylo diinad baa inaga muuqatee qof jacayl maha waxaad u timaadeen halkani waa alla jacayl diin jacayl baad u timaadeen diinteennaa macaan baa ina faraysa inaan ismaqallo oon is ixtiraamno oon isdhegaysanno oo aan kala dambayno insha allah dhahda de yaa u diyaara inuu samci wa taaca laga helo
saxaabada rasuulka radia allahu canhum sifadaasaa la baray iyaka inay ismaqlaanaysa adeecaan. salaadii markuu nabigeenu ka baxay calayhi salaatu wasalaam ayuu eegay majmacii, saasuu eegay. maa facala thaabit binu qays, war thaabit me nin saxaabiyaa yidhi 3 maalmood ba ninkaasi nebi allowna lama tukano, aqalkiisii buu fadhiyaayo uu ooyayaa. markiiba nebigu ziyaar ugu diray. maxaa masjidka ku soo biiray dad, maxaase masjidka ka dhimay oo masjidka ka maqan, nebigu uu tagi jiray calayhi salaatu wasalaam. imaam keliya oo dadka salaada ka bixiya ma ahayn, oo markaana adkaar la sii jeesta ma ahayn, bal imaam buu ahaa, mucallim buu ahaa, murabbi buu ahaa, mujaahid buu ahaa, wuxuu ahaa mid ummadda waxbaraya buu ahaayo ummadda u damqanaya. maa facala thaabit binu qays, thaabit me uu tabay nebigu saxaabadiisa ninka ka maqnaa. 3 maalmoodba gurigiisii buu fadhiyaayo halkaasuu ku tukadaa, musallo u dhow buu ku tukadaayo nalama soo tukan. markiiba nebigu jamaaca u kawinay, wuxuu yihi hala ziyaarto thaabit binu qays. markaasaa loo keenay nebiga sal allahu alay wasalam oo yihi nebigii baa ku doonayayna mari. markaabuu nebigu ku yidhi maxaa 3 maalmood aad masjidka uga maqnayd markaska? laanna masaajidka nebigeena sal allahu alay wasalam madiinat almunawara markas buu u ahaa, bal caalamkao dhan buu markas u ahaa. cahdigii nebiga magaalada madiina 9 meelood oo kaloo lagu tukada ayay lahayd baa la yidhi. laakiin nin kastoo saxaabiya salaadaha 2 ama 3 salaadood nebiga waa la tukan jiray sal allahu alay wasalam, oo waxay nebiga ka dhagaysan jireen waxyiga ku soo degayay bay nebiga ka maqli jireen qur-aanka. markaa buu nebigu yihi thaabit 3 maalmoodoo ku dhammaad naga maqnayde maxaa ku helay bal ii sheegood ku maqnayd? wuxuu ihi 3 aayadood oo qur-aanka ku taalloo kugu soo degtay ayaa 3duba aniga aadab xumadayda iyo akhlaaq xumidayday ka warramayaan buu yidhi. aniga unbay bay ga warramayaan 3daasi, nin kaleba ka warrami maayaanba. markaa buu nebigu yihi waa 3dee. aayadda koobaad laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum waantum laa tashcuruun. aayadda qur-aanka ilaahay dadka mu'miniinta uu kula hadlaayo u sheegayo aadaabta nebiga sal allahu alay wasalam markay masjidka nebiga joogaan ee nebiga ay ag joogaan inay hadalkooga kor u qaadin oo hadalkoogu hadalka nebiga uu ka sarraynin ayay ka warramaysaa. markaasaa ilaahay yidhi haddii midkiin hadalka markuu nebiga uu la hadlaayo hadalkiisa uu nebiga hadalkiisa ka sarreeyo, miyuunan ka yaabin camalkiisu inuu ka buru ka baaba'o. markaa nebi allow aniguna nin qaylo dheer baan ahayo aayaddani cidda ka warramaysa waa aniga, camalkaygiina inuu iga buray un baan u malayn buu yidhi. wixii camal aan shaqaysto o dhanna inuu halkaa ku gubtay oo adaab xumadaydaasi ay iga baabiisaan u malayn buu ka yidhi. aayadda labaad waa aayadee ina allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin faquur. ilaahay ma jecla mid kasta oo faan badan oo xarago badan. aniguna nin faanka jecel baan ahay oo xarago badan baan ahay oo xaragadana waan jecelahay, in lay faaniyana waan jecelahay. maadaama aayaddaasina ay ka hadlayso inuu ninka ilaahay uusan jeclayn, halkaa waxaa iiga caddaatay ilaahay aniga ima jecla buu yidhi. markaa buu nebigu yidhi haddii 3aadna waa tee wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu ilaa aakhiri alaaya. waxayse jecel yihiin baa ilaahay in lagu ammaano waxaysan ayaku aynan samaynin. aniguna nin faanka jecel baanaho mar walba in lay faaniyo unbaan ka helaa xataa anuu waxba qaban. marka ilaahayna ima jecla buu yihi rasuul allow. markuu 3daa aayadood ee qur-aankai nebiga ku soo degtay 3diiba uu yidhi aniga unbay ba iga warramayaan, oo inaan aniga maaragtaane ay aayadahan iga warramayaan. saxaabada qur-aanka ayakaa isku eegi jireen, dadka kale intay u macneeyaan aayadaha jannadana iyaku iskuma weecin jirin, aayadaha naartana gaalada kumay weecin jirine aayad kastoo qur-aan oo soo degtay hadday iimaan yaa ayuha aladiina aamanuu hadday maqlaan dhagaha ayay raaricin jireenoo waxay odhan jireen ama khayr baa layna farayaayo inaan qaadanaan diyaar u nahay, ama munkar baa lanaga reebayaayo inaan ka tegno ayaan diyaar u nahay bay odhan jireen. markaa 3daasiba anay iga warramayaan. markaa buu nebigu ku yidhi lasta miman yafcalu dalika bal taciishu xamiidan wa tuqtalu shahiidan wayudkhiluka allahu aljanna buu nebigu ku yidhi. bal taciishu xamiidan, maya adiga maaha kaas, waxaad noolaan doontaa buu nebigu yidhi adigoo xamiida oo ilaahay rasuulkiisu ay ku jecel yihiin, dadkuna maaragtaane ay ku jecel yihiin. diinta ilaahayna waad u dhiman doontaayoo gacan cadow baad ku dhimani doontaa, jannadana ilaahay baa ku gelin doona buu rasuulku ku yidhi.
آدابته أي قرآن كبرتنا أصحابه dhaqan wanaagsan aadaabtuna diinteena islaamka waa furihi weeyaan hadduu qofku aadaab u lahayn diintu qalbigiisa ma bagalaysaba imaam axmed binu xambal allah u naxariiste ayaa laga sheegay marmar duruusta uu bixinayay intuu joojiyey buu u tegi jiray nin macruuf alkarkhi la odhan jiray oo zaahid ahaa وعابد وعبادة بدنا عابد تقي وواعد أبو هذا الليل أرضي دي سي يا شيخ مركي ماداني وعدي يا شيخ أي دقيستان أي هذا نكون نقنجر المسكيت كوغو دروستي ومركا علم الحديث كوغو دقجري مركا بي مالين أرضي دي باكوتر الشيخ أحمد مالين والبني كان واعد كي داعي إمارك تاني زاهد كان نوغي ساي هذا كان أقوم بدني ما دروست نودida maxaad nagu kala goynaysaa wuxuu cilmiga aan dhiganayna qaayihiisu waa zaahid zuhdiga ninka uu gaaray in lagu gaaro un balla doonayaa buu yidhi waa ka cilmi badannahay isaga laakiin isaga naga camal badan buu yidhi isaga naga cibaado fiican buu yidhi isaga naga alla ka cabsi badan tawaaduca culamadu mutawaadiciin weeyaan famarka ijtimaaceena iyo dacwadeena waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka baranayna waa maxay waa aadaabta wanaagsan weeyaan أخلاقنا ونكسر كان أخلاق ديسو ما هجاجة يسو إلا إيمان قلبي يسو هجاجة مويان لأن أخلاقه وواحد جرك أنا كسر فوليس جرك بغن ونكسر كسر بحماية بعلماء دليهين إلى هجاجة مارتان الرئيس والأعضاء جرك مال بلغ حكومة ماشي جرك لغ حكومة وقلبك بني آدمك قلبك هدو هجاجه حبناها نوي هجاجة وعملك حبنه إنك صباح يقوى حقاقيا لكن قلبك هدو حمالة علماء دليهين جد كأن أعماشك صباح سنة حقاقي ميسي أعمال حمبك صباح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم warjirka bini aadanka buu nabigu leeyahay xubin baa kamid ah xubinta haday hagaagto buu nabigu leeyahay jirka oo dhan baa hagaagi haday xubintaasi ay baanaatana jirka oo dhan baa xumaan xubintaasi ayuu nabigu sheegay wuxuu waa qalbiga qalbiga waa meesha ilaahay adoonka uu ka eego weeyaan mar walba oo qalbigu wuxuu ku hagaagayaa waa kalsoonida ilaahay kalsooni buuxda kalsooni buuxda qalbiga markay gasho akhlaaqda qofka bini aadanka hagaagi oo camalka jirka ka soo fulaya ayaa hagaagi camalka jirkeena ka soo fulaya hadduu hagaagana axwaashan adduunyada dhan baa marka inuu hagaagi haddaad aragto ummad xaalad xun mar walba ku jirta qulub acmaasha ka soo fulaysa ayaa xun acmaashooduna ma xumaanin ilaa qulubtooda ayaa xumaatay oo qulubtooda waxaa ka xumaysay oo ka buuxsantay kalsoonida qaladka ayaa qalbiga ka buuxsantay kalsoonida qaladka qalbiguna ma xumaanin deedna waxaa xumaaday dadaalkiiba yaa meel qalada ku dhacay intaasaa isku xidhan dadaalku hadduu hagaago qalbiga ayaa ku hagaaga dadaalka ummaddu hadduu noqdo diin inay ummaddu ka shaqayso diin inay barato diin inay ummadda gaarsiiso diin inay ku dhaqanto haddii dadaalka ummaddu uu diin ku dhaco ilaahay qulubtooda uu hagaajiyaa oo qulubtooda waxaa ka buuxsamaysa kalsoonida toosan ee saxda ayaa galaysa waa ilaahay macrifadiisa qalbiga degaysa qalbiga markay ilaahay macrifadiisu ay degtana qofkaas jirkiisa waxaa ka soo fulaysa acmaal ilaahay iyo rasuulku ay ka raali yihiin oo hagaagsan acmaashu markay hagaagtana xaaladda qofka bini aadanka adduunyadiisa iyo aakhiradiisa hagaagaysa maanta xaaladda adduunyadu may hagaagsan tahay mise way xun tahay ya war may hagaagsan tahay mise way xun tahay waa xun tahay sanad walba waxaad maqlaysaa axwaal cusub oo cabsi leh oo naxdin leh oo murug leh maxaa axwaasha xun keenay axwaasha xun geedaha maaha waxa keenay buuraha maaha waxa keenay khalqiga badda ku nool maaha waxa keenay
beeraha maaha waxa keenay xayawaanka maaha waxa keenay axwaasha xun ee adduunyada ku socota waxa keenay waa bini aadamka camalka xun ee ka soo fulaya axwaasha keenaya acmaashu markay xumaato axwaasha xumaan axwaashu waa maxay abaarta faaqada faqriga colaada cabsida xanuunada aan hore u jirin sanad walba xanuunada aad mood sida warshad soo saartay sanad walba xanuun baad maqlaysaa magac loo sameeyey markiiba warshadee soo samaysay warshadda xanuunada samaynaysa waa fasaadu lacmaal camalka dadka ka soo fulaya ayaa fasaaday camalkuna ma fasaadin ilaa qalbiga ayaa fasaado oo caqiidadii baa fasaaday maanta oo kalsoonidii baa fasaaday kalsoonidii ilaahay loo qabi lahaa ayaa intoo laga weecday baa iyo la yaqiinsaday makhluuq ilaahay kayrkii baa lagu tacalluqmay yaqiintuna ma fasaadin bay culimmadu leeyihiin ilaa waxaa fasaaday juhdiga dadaalka ayaa meel qalada ku dhacay salaaxiyadii baa meel cillo cad ku daadanaysa deedna markaasaa ilaahay wuxuu sarrifayaa markaa acmaasheenni buu ilahay noo sarrifayaa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد ها عالم كما أنت فساد كصوت ظاهرة ولا محاكمة أوار بيلان علاد عبسي قاجو فقري حنونا عن هري لهم قال محاكمة فساد محا فسادي بما كسبت أيدي الناس حيوان كسبت إلهي مؤرن كلو سمك يا كسبت إلهي مؤرن buuraha kasbada ilaahay ma odhan dhirta iyo geedaha kasbata ilaahay ma dhihin ilaahay wuxuu leeyahy bini aadanka gacmuhugiiba ku kasbadeen waxan camalkiiba fasaaday deedna axwaalkiisiba fasaaday khilaafadii cumar binu khadaab allah raalli ka noqdee ayaa magaalada madiine waxaa ka dhacay iyo yani agagaarkeega abaar baa ka dhacday xoolihii baa dhammaaday markii dambena dadkii baa dhammaaday la yidhi markii hore xoolihii baa dhammaaday dadkii miiga deganaa xoolihii markay ka dhammaadeen magaaladii madiinay ku soo yaaceen dabcan magaalada lagu soo jabaa marka dambe cumar binu khadaab dadkii buu dhiiri geliyey ugu tarqiibiyey wuxuu yidhi war dadka hala caawiyo nin walba markaa wuxuu haystuu xagga dambe dhigtay buu ummaddii siiyey marka waxaa la islahaa abaartu way kici doontaayoo roobkii xilligii roobkaa yaa bilaami doona ولكن أبارتي ودبر ديراتي هدنا عمر بن الخطاب ورقد انتو قريب وعمر بن عاص ومصر جوقوا الله اللي وعلى أبار دبر ديراتان يا شيخ وحدا يس الصادر وحالي السفر وحو الصادري انتي سيب مدحي سينا أي مدينة صوق شيء انتي سبتن بنا مصر ولي كصوب حيث سفر كان تقول لك داري بر يا دقيق يا وحل عنور دبو السودان هدنا أبارتي ويسيد دبر ديراتي لا تتكي أي بنتين مركي دمي nin saxaabada ka mid a ayaa neef yar oo u hadhay buu is yidhi balqalo oo neefkan cad wuxuuna kaaga soo baxo waxaa la yidhi hilib uu ka waayo wuxuu arkay harig iyo lafa unba isku dheganba markaasuu neefkii kuma dhici karo halkaa intuu iska dhigu madaxa qabsaday waa muxammadah miskiidkii nebiguu soo galay daadna halkiibuu ilaahay ku baryey daadna nebiga halkii rawdadii nebiga ayuu seexday manaan buu ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaasaa nagu dhacday markaabuu nebigu uhi cumar salaan iga gaadhsii waxaanad ku tidhahdaa cumarow sidaa kumaan moodayna maxaa ku helay sidaa kumaan moodayn cumarow seed noqotay cumarow hawa rushdigaaga cumarow hurdadii buu ka kacay ninkii waa cumaraa cumar buu u yimiday manaamkiibuu u sheegay farriintii nebigu u soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam cumar muslimiinta iyo saxaabadiibuu kulmiyu u yeedhay wuxuu ihi farriintaabuu nebigu ii soo diray miyaan weecday waad weecataa laga yidhaha dariiqii axwaasha lagu xallinayay waad ka weecataa lagu yidhi xallu laxwaal waa maxay bilacmaal axwaal hadday timaado cahdigii nebiga waxaa lagu xallin jiray acmaal roob la'aan hadday dhacdo salaata alistisqaa baa la tukan jiray masaajidkaa la geli jiray waa la soomi jiray ilaahay baa la baryi jiray ummadda waxaa lagu tarqiibin jiray takhyiir alacmaal iyo toobad baa lagu tarqiibin jiray adiguna hee camar binu caas oo masar joogaad mucaawano ka dalbatay baa lagu yidhi maxaan samaynaa hala soomo 3 cishaa la soomay maalintii afraadna waxaa loo baxay salaata alistisqaa bannaankay ku ducaysanayeen ayaka oo taagan ayaa ilaahay roobka sii daayey
إلى صحابة ضرورة لقى دح مغلول ليري أتاك الغوث يا أبا حفص يا أبا حفص عمر بن الخطاب قرمت كي أدنا قد البتي وانكوك هنا اللي يقول قاضوا وكقرقار كإلهي دي بلاية ما دحقان وردينا شاقته يا وديار حق إلهي من ورد مالك لما بجرته حقا ورده موكل مالك لما بجرته مالك لما بجرته بجرته مالك له نتوب إلى الله ورفريسة وريا فريسة عدير فريسة رأي مقدشو فريسة اجتماع مقدشو انت من نيبو يردرا سواء كده يا شيخ خذوها اوي وربلا الى دغالو ميسان حاجه ادابته ولا ينغه هريا اجتماع هرقيسه اجتماع جيبوتي dadka ka soo qayb dad kuman ma 30 40 20 ma ka soo qayb galaysa hal qof oo hal ma jiro hal qof oo dhaqaaqay ma jiro mar haday culimadu hadlaan qof walba oo fadhiisan ma fahamtay marka inagu waa naga khayr jeceshihiin laakiin aadaabtana ku daray insha Allah dhahada waa naga khayr jeceshihiin laakiin aadaabtana ku daray oo diyaara dadaalku haduu hagaago maxaa hagaagi maxaa hagaagi yaqiinta hagaagi yaqiintu haday hagaagtana amalka ayaa hagaagi amalku haduu hagaagana xaaladdeenu dhan baa hagaagi xaaladda haddaad aragto muslimiinta xaaladii u hagaagtayna waxay ka dhigan tahay aakhiradoodii baa u hagaagtay ugu dad muslimiin oo adduunyada dusheeda ku nool oo inta adduunyada joogaan rafaad ku jira haddaad aragto bay culimmadu yidhaahdeen aakhiradoodii baa ka baaba'san muslimka noloshiisu halkay ka soo bilaabantaa hagaagaygu waa aakhirada weeyaan muuminku markuu ilaahay raalli geliyo ilaahay adeeco aakhiradaa u camirmaysa aakhiradu markay camiranto barakaadkii baa adduunyada ugu soo baxaya amni buu helayaa arsaaqad buu helayaa caafimaad buu helayaa cadaalad buu helayaa dad fiican buu helayaa madax fiican buu helayaa ummad wanaagsan buu helayaa mujtamac wanaagsan buu helayaa arsaaqad barakala buu helayaa awlaad barakaysan buu helayaa nolosha adduunka oo dhan baa u hagaagaysaa janno yar buu ku jiraa intaan la gaadhin jannadii weynay janno yar inna lillahi jannatan fi dunya man lam yadkhulha lam yadkhul jannata alaakhira in culimada islaamka kamida oran jiray ilaahay adduunka dusheeda janno ku leeyahay janno adduunyada jannadeeda ninka aanan gelinna jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyada waa maxay baa la yidho jannada adduunyada waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada waa maxay waa maxay nolosha adduunyadu janno inay ku noqoto haddaad doonayso ilaahay ku abuuray uun xidhiidh fiican la yeelo bas waxba ku dhibi maayaan waxna ka cabsan maysid waxba ka biqi maysid makhluuq rajayni maysid makhluuq tala saaran maysid makhluuq isku hallayni maysid limaada laanna waxaad ogaatee makhluuq waa zero uge waa imisa boqol zero uge kun zero uge zerogu wuxuu qiimo yeeshaa waa markuu numberku raaco hal zero marka one uu raaco maxay waa imisa waa 10 laba ebere markay hal raacdana waa 100 saddex ebere markay hal raacdo waa 1000 daa'iman zerogu keligii qiimo ma leh zerogu wuxuu qiimo ku leeyahay number markuu raaco weeyaan makhluuqu waxa uu awood leeyahay ma jirto waxa uu manfacayo madarro leeyahayna ma jirto makhluuqu wuxuu dhib iyo dheef u yeelan karaa waa marka ilaahay cilaaqa ula yeesho makhluuq markuu ilaahay abuuray uu garto inuu qiimo yeelana ugu makhluuq sifada makhluuq waa gooni makhluuq u baahan yahay waa miskiin waa faqiir cid anfacadu u baahan yahay hadday dhibaata la soo dirista cid dhibaatada ka faydu u baahan yahay ilaahay waa khaaliq qawi dhib iyo dhaaf isagaa haya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله
إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قولوا حسبي الله. قولوا حسبنا الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بإلهي. قرآن كإلهي نقول برا يا إيمان فوح وقد جاي ترى عركا يا أبو ري قلك وعكورنا أن الله با أبو ري أفكي كليه لكن إلهي قرن ما يان قلبك كقرن ما يان عربك إلهي كقرن يان ومرك اللي إلى عري يقولها يا أبو ري وعكورنا يان عرك يقولك إلهي با أبو ري وعاد كتر على بل واحد يقورتان هدي إلهي ونلدور دباتين ونيكينو إلهي غيرك عد دباتدا إنك قادي كرتو إنك فيدي كرتا ما جرتا وار ما جرتا هدو إلهي داف يا الرحمة وكوكا درنا إلهي نحريسي سعيدك وعين كرتانا ما جرتا قل وحاتر عذاب النبي قال له يري حسبي الله كانك يغفلا إيه الدقاء إيه إلالنا يا إيه تلسارنا يا إيه كوكا صونهي والله ويان عدك لماها أنا عدك لتلسارا مايو عدك للرجين مايو عدك لكعبصون مايو عدك لباهي وشيغا مايو قل وحاتر على محمد حسبي الله أنا كافيها وإلهي آلها قرآنك النبي أنا مركي كسو دقيا ومركي دادك أدوية جوغور النبي قال إلع كمرين أيا إلهي كل يا عبصون أدوه وعلي وحادك كاسور جيدونا ومخلوق والزيرو أدوه إلهي مدهي ستا هكو في الله مركي إلهي هكو في الله هكو دق مركز القرآن كنا صودق يا قرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين آياتها قرآن كن مكة الصودق ينا وحكى لك ورمي ما يالين تولد بدنا وحكى ورمي إن قلبي النبي محمد يقين تيكل صوننا إيا عزيمة الله السقو آية قرآن كن مكة قد لك ورمي بسد إبراهيم بالنبي الله ورمي النبي إبراهيم أدون كودم باكوري بدل النبي إبراهيم أدون كودم باطل كي أدون كي يالو النبي إبراهيم وحو قابل يا حرير كإساقي إلهي لك كان حيامك قابل وحكى لكم مقابل نمرود أفرتين يا بقري أدون كسومر تيبو النبي قولي لبنا قال هايان وبرو نمرود يا بخت نصر لبنا مسلمين بهايان النبي قولوا نبي الله سليمان يا ذو القرنين لبدي أدونك لبدي قال أدونك صوح كنت نين كمدا أيا إله النبي إبراهيم دعوة سكور جي مرقاس النبي إبراهيم عليه السلام لا يعني كافيها وإلهي دبك الله شدي وات نقش قصة القرآن كإلهي إنه شيء ما لا بدن مرقاس النبي محمد عليه الصلاة والسلام السجنة إلهي بقول قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وعثر على أنك كافيها وإلهي دبي دف أدوية دشة دوحي دب جرتنا إسقى باكيني إسقى بانا قاضي كرا وحي دف إلهي وقدرنا عد أنك يجور جوسن كرتا مجرتو دبي دف إلهي باهيا ما بعدها الله باهيا هو إلهي أنا تلا عد كلا أودي بني مايه تلا إسقى نديب تبي سجى يقول فلان مركز النبي أن محمد عليه الصلاة والسلام غزوات كي والنبي قال جري غزوات كبيرة غزوة الأحزاب أفرت دنعبا مقالة المدينة لقى صوت جوكسودي مركز يهودي مقالة تقنين النبي كوك علي وقال لي بهجيس لقى الهجيس أصاني مركز الله صادر إن من مرجفين والنبي كعب سيا صحابة ديس أولي أمتي ودم باينيسو كرتين سديبة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا استيبة بلليه هي كان إيمان بوق الزيادة هي حق عدو باك الجوغة حق عدو باك الجوغة حق عدو باك الجوغة قدي عدو باك الجوغة استيبة مرقاس إلهي إليه استيبان اسكدافة حالة أدقى كتم دب إلهي
iimaan baa uga ziyaadaya iyakan maxaa iimaan uga ziyaadaya waxay garanayaan culays marka uu yimaadaba waxaa gadaal socota laba fuday inna maca alcusrin yusra cidhiiri markay arkaanba waxay og yihiin farashku inuu dhow yahay markaas ibtilaa markuu ku dhacaba waxay og yihiin inay yihiin saabiriin leanna ilaahayna saabiriintuu la jira ilaahay baa macooda fazaadahum iimaanan iimaan baa uga ziyaaday buu ilaahay yidhi mushaahadaadka ay arkayaan kuma xisaabtamayaana waxay ku xisaabtamayaan ilaaha qadiirka ee qawiga ee casiiska ee latiifka inuu iyaka la jiro macooda yahay maba cabsoonayaan وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بيدادين أنكم وركا نما قال يدادين سديدا يا اسكو ديبنا وانا سديبنا أنكم ورا اسكو ديب يا اسكو ديبدين أرى اسكو ديبنا الله وانا اسكو ديب هنس ديب يا اسكو ديبدين الله وانا اسكو ديب إلهي وأمر قاري مركز انت يرى كليا إلهي عقابة لي بس قلبي قاس هدو قلبي إن يردنعك مخلوقه وجهسته نصرته يرفع ما يساع لكن قلبي هدو حقه كسق نادو نصرته مركبه ويظاهر يساع نصرته ما هو فوق ما دير نصرته بالليل ما دير انت يربى الله بهاي المسلمين دون دباتك كسول لسو درست أي رادان أنا كل إلهي بنا يسمع حرق إلهي بنا يسمع صيا إلهي نقول فينا أسبابتك كوبات إن أذيك سنة إن هنا المشاكل كأدوية يلا ككبت بأننا وامحي واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إمام الأنبياء أي إلهي نوغد النبي مشاكل كأدوية يلا ودنا حل كودي ونبي محمد الله الرعا الله قد يدوه إياه وركلمه مشاكل كأدون كي يلودن هدو هرو جري هدو مان تجرو هدو جري دونو حلق واتباع والنبي محمد الله الرعون صلى الله عليه وسلم هذا زمن كان نمك حنون كان هرقب كي أدونك ودن لقو شيء حلق وحا الله أرقى ما تقانا النبي محمد هذا الكسل الرعون تصمح الله أرقى inuu qofkii xanuunka lagu arkan la yidhaahdo meel fadhiiso dadkaa dhex geli inay yidhaahdaan markaad hindhisoonaysaa mahee mara afka saara intaaba waa sunnihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadda laakiin waxay ku leeyihin wasaaradda caafimaadka sidaa kule bay ku odhanayaan may intuba waa axaadiistii rasuulkeenna oo nabigeennaa sheego yidhi meel haddaad maqashaan daacuun baa ka dhacayna ha gelina haddaad joogtaanna ha ka bixina markuu hindhisoonaya nebiga hadigiisa waxaa ka mid ahayd inuu maradiisa nebigu afka ku qaban jiray uu soodkiisana hoos u dhigi jiray hadalkiisa markuu hindhisoonayo mashaakilka la faraasi meel kasta ile faraha dhaqla faraha xasha sunno waxaa nebi maxamed uu noo jideeyey markuu qofku hurdada ka soo kaco markuu waxa u horreysa u samayn waa maxay inuu gacmaha iska dhaqo gacmihiina buu nebigu uhi maydha waa sunne salaada marka la tukanayo in gacmaha hore la maydho waa sunne cuntada marka la cunayo biyo kor ka yimiday in lagu maydha waa sunne marka laga kacana in faraha laga masaxaa dufanka waa sunne sunnahaasaa maanta caalamka o dhan ku wada dhaqmayaan sanuriihim aayaatina fi الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد آياتك إلهي جل وعلا زمن كان ما أنت والظاهرية وعلى تصب بشرك ضعفك سبا إلهينا تصب ضعفك حبان قادني حبان عرقنا وحبان كهورتقنا وان هرومرني مي وحي ودن وحالة يري إلهي وحوك سوء عليه 0 0 0 0 وعلى محمد قادم ها نبيك كوني أفر بغلو صلى كهر الدنيا عنو صادرني زمن كي أورتي دميرها الاستعمال يجوغي قول كيسية سنه سيكون نغمة ساعد باتنا ما تنقود على دقبت بعدان
yar fadhiista walaal adeer yar fadhiisada sheekha بيان مش عناي ماشي فوضى تاجر وكذا iska yar fadhiisa adigu nabiga ku salliya walaalayaal ku salliya rasuulkeena allah inoo dambi dhaafo markaa sunnihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa mashaakilka adduunyada yaallo dhan maanta xal u noqday sawa inaan ku faanna sunnaha nabigeena soo maa inaan raacno ku dayanno cid kale markaa ha ku dayan itaacadda nebiga waa lagu hanuunayaa wain tutiicuuhu tahtaduu haddii nebi maxamed la adeeco la yeelo hadalkiisa waa lagu hanuunayaa waatiicu llaha waarasuula lacallakum turxamuun haddii ilaahay nebi maxamed la raacana waa laynoo naxariisanaya waa laynoogu naxariisanayaa waman yutic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima haddii ilaahay rasuulka la adeecana waa lagu daba liibaanayaa itaacadda nebigu waa hidaayad itaacadda nebigu waa raxmad itaacadda nebigu waa liibaan itaacatu muxamed calayhi salaatu wasalaam taacadda nebi maxamed oo la adeeca waa maxay adaa ku ilaalsamaya diinta adaa kugu ilaalsami aakhirada adaa kugu ilaalsami nolosha adduunkata aakhiro dhan baa kugu toosaya madiinat almunawara markuu nebigeennu yimid calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu arkay yahuuddii madiine deganeed oo maalinta cashuuraha soomaysa markaasuu nebigu ku yidhi waa maxay maalinkan ay soomayaan waxaa waa maalintii ilaahay nebi muuse uu badbaadiyey ee fircoonna la halagay oo shukri bay u soomaan mahadnaq bay reer bani israa'iil u soomaan maalinkaas markaa buu nebigu yidhi annakaa uga xaqle nebi muuse ininkuna maalinka cashuuro la yidhaahda sooma kal dambe haddii ilaahay aniga ay gaadhsiiyana sagaalaadkana waa soomi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkii buu nebigu yahuudda ku khilaafay yahuud cibaadadii buu nebigu ku khilaafo wuxuu yidhi haddii ilaahay kal dambe uu gaadhsiiyo si aan ayaka u khilaafana taasuucaan ku daraya sagaalaadkaan ku daraya halka cibaadadii yahuudda lagu khilaafay ayaa maanta muslimiintana dhaqankeena maanta dhaqanka dadka uu noqday oo markaad eegta mujtamacayaadka muslimiinta dee cidday ku dayanayaan maanta waad garanaysaan iyo cidda dhallinyaradeenu u eg tahay maanta nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam imaamu lambiyaa ayuu ahaa ilaahay baa inoo soo diray ilaahay waa inaan ugu mahadinaa nebigeenna soo dirista uu noo soo diray cumar alfaaruuq allaha raalli ka noqdee ayaa maalin maalmaha ka mid a nin reer bani quraydo oo yahuudiya ayuu intuu la fadhiistay buu kelimaad diintii nebi muuse lagu soo dejiyey ka mida ayuu ka soo qoray deedna markaasuu nebiga ula yimid uu yidhi nebi allow ma kugu dul akhriyaa diintii nebi muuse lagu soo dejiyey kelimaad ka mid a ku qoran warqaddane wejigii nebigeenna isbedelay calayhi salaatu wasalaam abi bakr asidiiq ayaa yidhi hakaladka ummuka cumar war hooyadaa ku weydaye miyaanan nebiga wejigiisa ka akhrisanayn buu yidhi diidmada uu nebigu diidan yahay qoraalkan aad sheegaysa markaasuu cumar intuu naxaybu warqaddii dhulka ku tuuray wuxuu yidhi radiina billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxammadin sala allahu calayhi wasalama nabiyan warasuula markaasuu yidhi markaabuu nebigu farxay markuu hadalkaa cumar uu yidhi ayuu nebigu farxay deedna markaabuu nebigu saxaabadii la hadlo wuxuu ku yidhi anoo maanta inila taagan haddii nebi muuse adduunka intuu u soo baxo aad isaga raaci lahaydeen ood aniga iga tegi lahaydeen waad lunteen buu nebigu yidhi waad hallowdeen buu yidhi anoo inila jooga hadduu muuse intuu yimaada isaga aad raaci lahaydeen ood aniga iga tegi lahaydeen waad hallowdeen oo dariiqii xaqa waad ka weecateen oo waad garamarteen weeyaan wallaahi buu nebigu yidhi muuse hadduu noolaan lahaa maanta aniga dariiqaygaa unbuu mari lahaye waddo kalama mareen buu yidhi waa nebi muuse ululcasmi buu ka mid ahaa waa nebiga keliya adduunka dusheeda ilaahay uu siiyey inuu hadalka ilaahay toos u maqlay isagu kalimullah wa kallama allahu muusa takliima deedna markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inakum xadi min alumami wa ana xadukum min annabiyiin ininku waxaad ii tihiin nasiib ilaahay aniga ummadihii uu iga siiyey aniguna waxaan ini ahay buu nebigu yidhi nasiibu nebiyadii aad ka hesheen baan ahay buu nasiib baad igu hesheen ana nasiibkaybaa kii siiyey buu rasuulku leeyahay nasiib baad ku hesheen nebi maxamed
inaad noqoto ummaddiisii. ambiyadu way tamaninayeen qaarkood inay ummadahooga ummaddan laga dhigo, sida nebi muuse oo kale calayhi salaam. habeenkii laylat alisra waalmicraaj markii nebiga la dheelmiyey masjid alaqsa uu nebigu yimiday, ambiyadii baa ilaahay u kulmiyey jalla wacala. markaasaa nebi shucaybna u khudbadeeyey. nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu noqday imaamu alambiyaa. halkaasuu nebiyada salaad ku tujiyo uu imaamu ilaahay uga dhigay. dabeedna halkaasaa jibriil baa ka qaaday calayhi salaam laylat alisra waalmicraaj ilaa samaa'i dunya. samadu albaab bay leedahay u garaacay jibriil. markaasaa lagu yidhi ayaa albaabka garaacaya? waa jibriil. ayaa kula socda? waa muxamed calayhi salaatu wasalaam. miyaa loo yeedhay? haa, addoonkana nicmo ilaahay u yeedhay bay yidhahdeen, oo markaasaa albaabkii laga furay samada. dabeedna halkaa waxa uu nebiga ugu tegey aabbaheen aadam calayhi salaam. abuna aadam oo dherarkiisu yahay 60 diraacan fi samaa, oo ilaahay uu siiyey joog iyo qurux. markaasaa nebi aadana wuxuu arkaa nebigeennu xagga midig markuu daymoodana farxaya, xagga bidix markuu eegana maaragtaane naxayo murugoonaya. markaasuu nebigu ku yidhi jibriilow, shaksigani waa ayo ilaahay quruxdan iyo karaamadan u siiyey? markaasuu yidhi waa abulbashar aadam weeyaan calayhi salaam. marna xaggaa buu eegaa uu farxaa, marna xaggaa buu eegaa uu murugoodaayo. maxay ka dhigan tahay ii sheeg? xaggii midig markuu eegana waxaa la tusaa awlaaddiisa inta wan wanaagsan ee jannada galaysa qaa'imadooda ayaa la tusaayo uu ku farxaa. xagga bidix markuu eegana waxaa la tusaa awlaaddiisa inta xunxun ee naarta lagu daadinayaa la tusaa. deedna waa ka murugoodaa buu yidhi. ilmaha labada wiileed dhashay hadduu mid fiican yahay oo war fiican lagaaga keenana waad farxi, haddii ka xun war xun lagaaga keenana waad nixi. aabbaheen aadam maxaad u malaynaysaa? abulbashar, oo waxa bani aadan adduunka joogoo dhan ay yihiin ilmihiisii, ubadkiisii. inta wanaagsanna weliba ay kooban tahay. inta wanaagsan iyo inta xun midkaa badan? inta xun baa badan basharka. markaasuu inta wanaagsan marka la tusana uu farxaa, inta xunxun ee naar ku hoobanaysa marka la tusana uu ka murugoodaa. haddana uu tegey samada labaad. nebiyullaahi yaxya iyo nebi ciise laba habro wadaagu nebigu ugu tegey. haddana maaragtaane waa dhaafay nebigu. samada saddexaad nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam buu ugu tegey. yuusuf waa nebi, aabbihiina waa nebi, awowgiina waa nebi, awowgiisa labaadna waa ibraahim alkhaliil calayhi salaam. markaasuu nebigu uhi nebi yuusufo waxaan u tegey quruxda aadam awlaaddiisa ilaahay u qadaray kala badh isaga lagu deqo ilaahay uu siiyey. uma haddana samadii afraad haaruun calayhi salaam. samadii shanaad nebiyullaahi idriis. samada afraad idriis. samada shanaadna haaruun. samada lixaadna nebiyullaahi muusa calayhi salaam. samada toddobaadna wuxuu uga tegay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam. ibraahim ayuu la joogay buu yidhi. ubadka yaryar buu nebi ibraahim dhex joogay. ubad yaryar, ubadka yaryar ee yaraanta ku sakiira, kuwaas buu iskala xayaadaayey. sababta nebi ibraahim uu u helay inuu ubadka yaryar ee yaraanta ku sakiira uu halkaa kula noolaado kula xayaada waa maxay baa la yidhi? laanna ibraahim calayhi salaam islaantiisii haajare iyo inankiisii ismaaciil ayuu meel cidlo cad intoo la yidhi halkaa iska dhig oo ka dhaqaaq ayuu ilaahay dartii uga dhaqaaqay. man taraka shay-an lilah cawadahu allahu khayran minhu. qofka shay ilaahay dartii uga tega wax ka khayr badan baa ilaahay ugu beddelaa. maadaamuu nebi ibraahim calayhi salaam xaaskiisii haajara iyo ilmihiisii ismaaciil afartaa buurood ee maka ay kacbadu ku dhex taallo oo biyo iyo baad aanan lahayn, halkaa intoo la yidhi ilmahaaga halkaa dhig, islaanta hooyadiina u dhaadhici, baad iyo biyo waxaad u haysana sii, halkaana kaga dhaqaaqoo kaga noqo. maadaama oo la yidhi uu ilaahay dartii uga dhaqaaqay, waxa ilaahay nebi ibraahim ugu abaalguday inuu samada toddobaad ubadka yaraanta ku sakiir halkaa uu kula xayaado kula noolaado. haddana waa kii la yidhi ilmahaaga ismaaciil gowrac, sida neefka xoolaha loo bereeyo u beree. taana isagu waa oggolaaday, laakiin ilaahay baa ka diiday.
isagu inuu birta mariya uu doonay baa la yidhi uu ku dhaqaaqay laakiin rabbigii baa ka diidoo la yidhi may imtixaan un bay ahayd oo imtixaankiina waad ku